wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Axmed Nuur Faahiye ayaa maanta xadhiga ka jaray xafiiska cusub ee shirkadda duulimaadada Fly Dubai ay ku yeelan doonto magaalada Hargeysa iyadoo munaasabada xadhiga jaridda ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Fly Dubai. Xafladan xadhiga jarista ayaa ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay oo hadalka ay fafuray Senior Vice President Commercial Master Suwaida waxaanu u mahadnaqay wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland sida ay qaybta lixaad kale ay ka qaadatay markaasi in shirkadda duulimaadka Fly Dubai ay ka mid noqoto shirkadaha kala duwan ee ka howlgala madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan. Honorable Minister, Excellencies and distinguished guests, thank you for being with us here today. We really appreciate your time and we appreciate all the support that we have got from the regulatory authorities of Somaliland in helping us launch our operations to Somaliland and grow. About 2 years back, on the 9th of June 2015, we launched 4 flights a week into Somaliland. And we feel and we believe that we connected this beautiful country, UAE, offering the first non-stop service by UAE carrier, and giving the passengers the chance to connect to over 130 carriers that operate around Dubai. The story that we believe in, and as Fly Dubai believes in, is to connect more underserved or previously not connected cities into UAE and into Dubai, so that we could connect more people and make travel more seamless. Today, we fly to 93 cities across 44 countries, and we connect 62 of those 92 cities were previously underserved or not connected. geesta kale waxa isna halkaasi ka hadlay oo hadal ka jeediyay gudoomiyaha ahna wakiilka Fly Dubai waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan. ugu dambeyn kasoo qaybgalka la soo qaybgasheen xafladda furitaanka Fly Dubai la soo qaybgashanaad oo wanaagsantii halkan waxaan u yeelin kelmadda macnaha aad u wanaagsantii. ugu dambeyn munaasabadaasi xafladda ahayd ee xadhiga laga jarayay shirkadda duulimaadka ee Fly Dubai ayaa waxaa soo gabagabeeyay oo halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland Axmed Nuur Faahiye isla markaana soo dhaweeyay shirkaddan cusub ee duulimaadka ee Fly Dubai waxaanu sheegay inay la shaqeyn doonaan ka wasaaradahana wasiirku isagoo ka hadlaya amurahaasina waxa hadaladiisii ka mid ahaa sida tan. Dubai waa in dowladda ka shaqeynaysa waddanka dheer waxaan ka dhignay 7 cisho inay timaado waddanka. Dubai waa international flight weeye waxyaalaha u baahannahay inaan waddanka kusoo kordhino si ay ugu shaqeeyaan bulshada Somaliland isku xirka adduunka oo dhan. aad baan ugu mahadnaqayaa xafiiskan weyn ee quruxda badan ee maanta noo furay. intaa kadib shirkaddan cusub ee duulimaadada ee Fly Dubai waxay ku wareejisay maamulaha guud ee Cigaal International Airport xumbada dabka lagu baqtiyo ee afka qalaad loo yaqaano bonfire waxaana halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee Cigaal International Airport. dhanka kale waxaa halkaasi isna hadalka ka daba qaatay oo halkaasi ka hadlay mas'uul ka tirsan shirkadda Fly Dubai. madaarka caalamiga ee Cigaal International Airport waxaanu kula wareegaynaa shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai waxa loo yaqaano xumbada ama foomta lagu baqtiyo alla weega lagu keenay hadduu incident dhaco ama ay diyaaradaha wax noqdaan aad iyo aad baan marka koowaad shirkadda Fly Dubai aan ugu mar labaad iyo mar koowaad ugu mahadnaqaynaa. foomta ay nagu wareejinaysa sida la sheegay waa 4,000 oo tan ama 4,000 oo litir sida wada arkaysaan marka mar koowaad aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Fly Dubai. I would like to thank also the authorities at Cigaal International Airport for the cooperation and the support they are extending to Fly Dubai for the operation that we have in Hargeisa. aakhirkii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha Cigaal International Airport isla markaana soo dhaweeyay shirkaddan cusub ee Fly Dubai. waxaan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Fly Dubai oo nagu wareejisay sida arkaysaan xumbadii dabka ee diyaaradaha ee kiisa wax lagu dhacan lagu baqtiinayay. runta waxaa laga yaabaa dadku inay aad u fahmin ahmiyadda xumbadan leedahay. waa markii koowaad
madaarka caalamiga ah Hargeysa ama Somaliland madaxdeeda badan loo keenay Yusuf Xasan Khalid Fantastic Television ka caalamiga Somali News Hargeysa